يا أمة المسلمين تا مر وبعدين دعلا كتشوجان وهم هذين يا ما هذا الله أسكله وهم هذين يا channel ka saardan nurshe saad igu soo dhaweyseen iyo wajifnaantiina waa inuu mahadcelinayaa halkan maanta waxaan kala hadlayo waa aniga askariyaha Maxamuud waxaan ka sheekeynayaa sheeko ku dhacday nin la yiraahdo Cali Dabataag wuxuu ahaa nin reer miyiga wuxuu ahaan jiray wuxuu ahaa nin adigu xoolo dhaqataayo iska iishee iska mahalkiya adigu xoolo iska haysta wuxuu haystay 3 lo iyo ari badan oo adigu wax ma aqaan u taqaaniino 4 tirmeelaha gaaraya waxa dhacday inuu libax habeen walba libax cuno xabad cuno arigiis Cali Dabataag wuxuu ku fikiray libaxan suu u dili lahayo qad u galin ishe wajaran laha maadaama uu arigiisu cunay Cali Dabataag wuxuu u yeeray saantiisii la oran jiray muumina kaale buu yiri hayee tiri wuxuu yiri guriga gadaashiisa fargeeta ishe ma qansa u taqaaniin bahashan dhulka lagu qaraaco ishe dubahan ikabi hayee tiri waa soo biibo ka guriga godkii uu qodo wuxuu qodo adigu dad ilaa iyo in 2 mitir kala buu qodo waa fahmi karaan waa dabin wuxuu u saaray qoryo ayuu u galgashay meeshii waana habeenka adigu dayax ma jiro iska mugdiyo wuxuu waxba arki maayo godkan wuxuu ku jeedaa suu u cuni lahaa ariga waa soo orday libaax waxa horaaba loo yiri dawacad meesha macluul ugu baratay macluul ugu baktida libaax halkaas iska keen waa soo keen isagoo iska laafiyoonayo isle waa cunaysa caawan mid baa ku qalan buu godkii ilaahay marka cagiisa qoriyay baa la dumay wuxuu ku jira Cali Dabataag habeenkii subaxdii soo kax wuxuu soo fiiliyay godkii mise libaax waa ku jira wuxuu yiri muuminoy waxaad ii keentaa biyo kululeysan dabkaysa goorta biyo kululeysan 5 jeer u keentay oo mar lixaadkiina u dalbaday oo u soo wado ayuu wuxuu sameeyay libaax isagoo fakad iyo carar ku jiro iyo argagax buu libaax godka marka bool oo carar libaax iyo xanfuf iyo kuleel iyo diirdiiran oo adigu wax dareemay wuxuu aaday keenti libaaxyada kala joogay libaaxyada ayaa la arkay wuxuu uga sheekay sheekadan si ku dhacday iyo soo ku gubtay waxay dheen ninka libaax saaxiibkeena soo gubay afimeeno waan soo cunayna keen waa soo raaceen waxay wadaan boo ay soo baxaan waxay u yimaadeen libaaxyo badan oo dareemi kadaan halkaas waxa ka yimi xayn halkan waxa ka yimi Cali Dabataag xayn xaggan xayn Cali Dabataag oo isla libaaxi waaba ku daayay oo jooga gurigiisa iska hortaagan sabartiisii muumina ahayna safar ku maqan tahay ayuu wuxuu sameeyay waa soo ordeen libaaxyadii goorta soo ordeen buu wuxuu yiraahdeen Cali Dabataag wuxuu arkay xayn halkaas libaaxyo ka soo socota uma qabin inta tahay kili u qabo halkan waa kaga yimaadeen 4 jeer waa kaga yimaadeen Cali Dabataag wuxuu sameeyay garan waa carar geed buu fuul libaaxyadu isku yimaadeen geedka hoos yimaadeen waxay ku tashteen ninkaas si u gaari lahaayeen oo soo qaban lahaayeen waxay dhaheen 4 xabul libaax baa kor iska fuushay 4 libaax waxa hoos maray awal gubtayo adigu waa dareemi ka dhaaqad wix qof gubtay soo noqon karo iyo kulka iyo xanfuf ku dareemi karo libaaxi uu soo koray waa dusha iska korkareen waqti oo qamar rabo oo libaax ku dhigi rabo kii u karayo ku soo dhigi rabo libaax cod kor wuxuu ku yiri muuminoy biyo kululeysan muuminoy goortu libaaxi dhawaqaas yaa maqlay doona waxaa maqlay
libaaxii hore u gubtay oo libaaxyada kale ku taagan yihiin ayaa qoray u maqlay uu soo orday malaa wuxuuba isiir dhag waqaaniyo sheekada tan nimana waa dhacaysa waaba run ee meesha ka car hal mar argagax iyo kul iyo wixii soo dareensan ka car horaa loo yiri dabaadan kulkiisa arag dambiskiisa kama leexatid waa goost libaax saaxiibadiisa kor saaran waa meesha soo dhacay mid baqteeye mid cheese noqday mid jaba ayay libaaxyada noqdeen marka waxaan uga jeedaa sheekada tan in aad hadaad meel wax ku aad ii sheeg caqli aad waxa ku qaadan lahayd aad heshid aadan isdiin habeen walba adigu habeen walba inaad waxa iskaga baran sida hadda oo kale habeen hadaa cuntid hadaa libaax ba tahay habeen hadaa cuntid habeenka xiga aad u goysid habeen kale adigu laba toddobaad hadaa maqnaatid mid asleeda wiil ku daaya wixii ayaa qaadan kara